hargeysa maanta waxaan kula kulmay odayga dhinacan iga xiga oo la yiraahdo Daahir Quraysh oo jira 137 jir ah bal hadda ku soo dhawow Star TV badriyo waxaan kaga warramayaa guurkayga horeeyay 1921 bishii labaad anigoo maraya marjigiisu dhow oo la yiraahdo Garbaxse Jamaad Sayid Cabdullaahi Xasan oo sayidka walaalahaayeen ayaa baaragtay waa isu taagay kadib weegaashaana waan ka helay walaalkeed bay ii geysay markaa basri waxaan doonayaa inaad inankana imariso waan sexlaanee markaa weli 3 masalo hadduu ka soo baxo waan ku meerinayaa 3 masalo ayuu weydiiyey waxaa yidhi faraskan gaaban goob cad baa la yidhaha fuul adoon fuushanayn ha ii imanin cidoodoo soo joogtana ha ii imanin hooyadayna iimay ka soo eg inay dhimatay hay sheegin inay nooshaana hay sheegin markaa waan dhaqaajiyey 2 cishaan sii socday waan tegey islaantii oo laasayo maalin baan ku nastay 2 cisho kale ka soo dhaqaajiyey waan ag imid kadib faraskii dhugu baa saagay luguna dhulkaan jiiday cadceedoo barki soo baxayna oo bannaay dhacday ayaanu imid markaa wintuu qasla yidhi iidoo dhalay wallay gaala yaryar kanoo maskax weyn eeg islaantii baa goodayba odhane markaa baan idhi afkaaguna laga helo markaan idhi afkaagaa laga helo bilow ciidankii oo dhan shacabkay garaaceen jamaad baa faras soo dhaqaajisay annakaygii baan ku dhaqaajiyey sheekh maxamed cali qablax ayaa yidhi sidaa gabadha xaggay kaaga dhicin xaggaada ma ku dhacdo kadib gabadha soo mooday xagga maysimid waanu nimid sheekh maxamed cali qablax ayuu yidhi taandhada khaymadda u dhisa dhanan ileeyow raac faarax dhoorow raac soo meeriya sidii baa dabisa lagu meeriyey kadib waxaa dhali weyday 3 sannadood ayaa ku dulaabsaamay markaa basri boqor Itoobiya oo muslina ayaa warii soo diray haddii kaa guursan waayo halkaa waan kaa toganayaa kuna waayi maayo waxaan orad ilaahay baa isqariye Daahir Quraysh sheekadu way noo sii socotay waxaanu ii sheegay da'diisa iyo waliba intii uu jiray inta dumar uu soo guursaday waxaan 137 dumar waxaan soo guursaday 720 hada haweenkaayo ka sheekay maraaxilka 720 sidaad u qabtay dadku wax dhibaatay wax raaxal weynayeen oo wanaagsanayeen oo kulli waxa la yiri xilaaga lama ceebeeyo waa gartay laakiin 720 diitu oo kale markaa maqaarkood dad furaysay wariga xabad ma soo qabay malxamada quraan dhigi jiray wadaba marka meel ka gooriyay ma raaci may oo furayay tukala meeshkala ka gursan jiray taymkana waxa 3 jir Daahir Quraysh waxa uu sheegay inuu hadda guursaday inaan 23 jira waxaana weydiiyay bal hadda qaabka sheekadoodii iyo waliba sida ay isku fahmeen maadaama da'diisu ay tahay 137 jir ayaduna ay tahay 23 jir taymkana waxa 3 jir inaan baynayay iyadoo waxaan ku kulanay basig jigeer baa raacay way soo fariistay marka waxaad eegtay wadhiday andoon eegay oo saddeedne kadib waxaa dhacday inay jiri waan ka helay waxaan eegaysay maxay ka taqaanaba iminkaan ku baranayaa weytii kadib ayaan sheekaysanay 3 shekale markaan sheekaysanay baabeelu yeedhay hibadii baan odayga ka qaatay barguudhad baa lagu meeyey sidii baan gabadhi ku qabaa aad baan isaga helnay waana iswaafaqnay أنا أعرفكم ودورسنايو إيدنا أعرفكم ودورسنايو. سواء بدنا وقت قاعد شرتي ووقت قاعد در محاك وقولا يا بدنا إتياد صنو. وعاد جايب سنة هرجس مركز دخيليو ما لنا كفي زعوانا مجرين. كان يوم هرجس بارو رابط بدينا أنا كجرا
ayaan ka soo baxay laamiga agtiisa mid askari baasuka saawaysan arkay waxaan soo qaatay eede baashan biibaabtay kancada iyo xabad beekeya kii baasuka haystay baan ku furay kii baan gubay markaa ma yeerarkii gidaarka ku xidhnaa kama furay kuwii imika baxday joogaa way noolyihiin gabagabadii maxaad soo jeedin waxaan odhan lahaa dhulkiina amina nimca wadiin soo socotaa maxda lagama baadhin weli barool uu noo soo bixi wax walba waa la heli ilaahay uu ku kalsoonaada saasaan igu ducanayaa waxaanan odhanayaa ha iska ilaaliya kelmad dagaalkiisa koy ku bilaabmay oo ahaa daymo la kor dhabay gacan loos dhibay hunguri lagu goday waa imaan la-aan ilaahay waxaad ugu carartiin toobad la kor dhabay towfiiq loos dhibay xorriyad lagu goday allah ina siiyo ma dhoweyd su-aasheeda igu dambaysa waxaad ii sheegtay ka hor intaynaan waraysi kaa qaadin sheekaysana waxaad ii sheegtay inankaagu imika aad tiri aad baabuu duqbu noqdayba oo aad kaftanna idin dhex maray bal arrintaa ka war maalmaad maa ka mid ah aniga xasan cabdi khayre iyo cabdilaaji rawal ayaa u tagnay ka buu qaaday oo soo juuray wuxuu leeyahay war wuxuu cunuysiin waaye haddaad dowladtihiin ninkana xila kabtuu soo juuray buu xasan cabdi khayre ku dhuftay kadib baan yaabe lacag baan u dhibay uu gogoyba waa sasamay waa 119 aad iyo aad baa